fadlan marka hore like saar kadib subscribe dheh kabacdi gambaleelka furo si aad u hesho waxyaabaha aynu soo dhignay kuwoodii ugu dambeeyay mahadsanid bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaasheena ku xiran channelkani Aqil Official kusoo dhawaada barnaamijkeena oo maanta kaga hadli doono saxaabiga weynaa ee ku caanbaxay warinta axaadiista ee Ilaahay ka raali noqday ee Abu Hurayra magaca saxda waa Abdurrahmaan ibn Saqar ad-Dawsi waxa uu dhashay sanadda miilaadigu markay ahayd ama taariikhda miilaadigu markay ahayd 559 waxa uu noolaa ilaa 676 Abu Hurayra intuusan Ilaahay diinta Islaamka ku manaysan iyo la kulanka nabiga waxa lagu magacaabi jiray waa Cabdi Shamis markii nabiga uu la kulmay ayaa nabiga weydiiyay magaciisa waxa uu ku jawaabay Cabdi Shamis markaasuu nabiga ku yiri maya maanta laga bilaabo waxa lagu yiraahdaa Abdurrahmaan markaasuu Abu Hurayra ku yiri rasuulka Ilaahay hooyada iyo aabay ha lagu furtay maanta laga bilaabo magacayga waa Abdurrahmaan halka aabiisa la oranayay Saqar kaas oo magaciisa uu ku noqday Abdurrahmaan ibn Saqar kunyada Abu Hurayra ayaa waxay ku baxday xilliga yaraantiisa ayaa waxa uu lahaa mid leh bisad isla markaana jeclaa inuu la ciyaaro bisadaasi taas oo markii dambe ciyaalka ama da'yarta asxaabtiisa ay ugu magacaabeen Abu Hurayra xilligaas oo markii dambe uu ku caanbaxay magaca Abu Hurayra guud ahaan qaybtii koowaad ee barnaamijkeena maanta ee Abu Hurayra kaga hadalnay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta qaybta xigta aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh